بسم الله الرحمن الرحيم دمان وين سلامي قرابada iyo dadka magaaladan Edmonton gobolka Noolo Soomaalida waa anigu marka la soo laaftay waxaan rabaa inaan la sheekareeyo meeting wanigi shalay oo bishu ay ahayd June 2-3 meeting aan ii sheegay aan kula qoladii coalition-ka oo Justice for Human Rights baan la kulmay waxaan ka shaqeynay sidii maartay aan process ku bilaabi lahaa position-kii funding-kiisi hadda waxaa la sad gareynayaa account-kii lagu shubi lahaa iyo sidii ku dhici lahayd oo loo raise gareyn lahaa 75,000 aan rabno inaan qof ku hire gareyno arrimaha iyaga u dumo oo nabaabula horta waxaan rabaa inaan la share gareeyo xoogaa yar oo nuugiisa maartay waxa weeyaan horta centerku loogu yeero anti-racism anti-oppression is human rights non-profit dedicated to advance through fairness and equal justice. It works emphasize promoting equality, justice and inclusive practice and serving as a voice for unheard and defender of the rights. sida iga qiimo saad ingiriiska ka fahmaysid luqadeen hadaan tarjumo waxa waaye waa maxay yiraahdaa xafiis shaqadiisa ay tahay sidii uu cadaalad noogu raadin lahaa dadkan wax la qaybsan lahayn sidii dad ama ahan immigrant laakiin dad wadanka u dhashay citizen buu noqonayaa voice-keena ku hadlay karaan buu noqonayaa midda kale to waxaan rabnaa inuu centerkan u dhiso mission by challenging system racism-ka iyo structure-ka ah baan rabnaa inaan maartay ku challenge gareyno ama kula dagaalano maartay oo maartay operation ahaana maartay dadka ku sameeyay cadaadis oo ah meeshaada joog maartay this is your place amal weeyaan iyo anagoo u marayna legal advice legal advocacy iyo education iyo community support saddexdaba maartay sharci ahaan maartay aqoon ahaan oo kor u qaadayno inaan maartay sharciyadeen maxaa la yiraahdaa right-keena anagoo isticmaalayna iyo inaga community-ga support gareyno qofkii markaas ama shakhsi ama community-ga ba in maartay la taageero hadda marka step-kan hadda waxa weyn waa step-kii ah financial-ka sidii aynu u abuuri lahayn dhaqaale ku filan qofka markaas bilaabo maahan at the end of the game maaha waa beginning way waa serious money weeyaan oo ah qof highly qualified highly motivated ah inaynu u xilsaarano arrintaas baynu u baahanahay maartay waxayna u badan tahay establishment oo ah in la abuuro wixii ugu horeeyay oo dhaqaale ah oo arrintaas sanadka soo socda 2027 waxaan rabnaa arrintaas inaan abuurno dhaqaale ilaa 6 bilood secure ah oo qofkii ku filan oo san ka walwalaynin maxaa la yiraahdaa inta income-kiisi iyo hawluhu qaban lahaa xataa research baa ku jira inuu sameeyo baaro waxyaalaha anaga maartay ama anaga na khuseeya ama waxyaalaha anagu aan naga dhiman ama waxyaalaha nagu ziyaada oo anaga maartay naxanibay siiba dhalinyarada maartay iyo qoysaska yaryarka arrintaas baan rabnaa inaan u sameeyno waxaan rabnaa dhaqaalahaas inuu save gareeyo inuu independent noqdo oo ka madax banaana dawladda sababta dawladdu hadday dhaqaale ku siiso dan amarkeeda waa inay qaataa lamana marmi ka dhigto waxyaalaha ugu badanna dadka aan rabna xuquuqdeena inay ama hadii nala ku xadgudbay ay naga dhiciyaan ama hadii xuquuqdeena naga maqan tahay aan nala soo dhiciyaan ama hadii u baahanahay xuquuq inay nala raadiyaan waa dawladda hadii marka aad dhaqaale ku siiso you cannot bite the hand feeds you marka arrintaas waxaan rabnaa xafiiska qofkaas iyo xafiiskiisu inuu ka madax banaayo arrinta waana arrinta ay sameynayaan hadda qolada kale oo dhinaca kale ah oo iyagu September bay rabaan fundraising kale inay sameeyaan November-na way sameeyeen September-na way sameeysanayaan marka taas wax weeyaan in waa qolal waa wada geelo waa wada jirtaan maqli jiray waana la kala jirtaa iyagu waxay priority ku ah inaga priority no ma iyaga homeless-ka iyo maartay qomoluudka iyo waxyaalaha aan calibaysteen ilmo laga dhacay waxyaalahaas oo laga yaabo hadda inay priority bay priority ah inaga markaan rabno issue anaga naqsay sida housing-ka maxaa la yiraahdaa immigration-ka maxaa la yiraahdaa opportunity-ga iyo shaqada maartay waxa jirta business waxa jira dad badan ay ku dhaawacmeen oo banaanka la mariyay oo aan wax u doodayaa dadkiina hadda disable yihiin marka
waxyaalahaas iyaga uma aha maxaa la yidhahdaa priority ma aha marka waxaan rabnaa geela waa la wada jartaa waana la kala jirtaa inaan wala isticmaalno iyaga magacaas weyn aan la wadaagno umbrella midda kale aqoon bay u leeyihiin dad legal lawyer high qualified bay leeyihiin oo marka laga yaabo issue-yada qaarkoodna soo food saara inay arrintaa nagala maartay shaqeeyaan waxyaalaha ugu badan oo aan rabno inay arrintan dhaqaalaha aan abuurno inay abuurto waa inay organizationka stable ka dhigto shaqaaluhu haddaysan markaa taageero feel garin especially income-ka waxaa laga yaabaa inay naga tagaan waxa weeyaan advocacy ahaanna ma qaban karaan dee waqti buu gelinaya qofka waliba waqti waxa meel adag weeyaan so qofkii haddii uu ka walwalayo maaragtay xagee gaaska ka helaysa iyo xagee aad dhaqaalaha ka helaysa ma joogayo maxaan rabnaana qofkaas inuu dhiso long time maxaa la yidhahdaa income stability ururka laftigiisa abaa la rabaa oo waqti geliyo maxaa la yidhahdaa waxaan kaloo rabnaa inuu dhimo inay wixii aysan noqon wax yar qof baa ilahaa 75,000 Soomaali baa rays gareyn karta Soomaalida ka badan bay haysataa mararka qaar milyan bay isticmaalaan laakiin wax weeyaan lacag way haystaan priority baysan kala garanayn waxaysan garanayn how important is this issue so ma fahmin qofkii yaqaano baa garanaya qofkii lagu xadgudbay baa garanaya qofkii xaq ka maqan yahay baa garanaya muhiimadda ay u leedahay inaad heshid meel aad kula caawisa inaad heshid maxaa la yiraahdaa xuquuqdaada how many people baa hadda meesha la yiraahdaa dibadda intay sponsor gareyn group ku sameeyeen la riday iyagoon la weydiinba so ma fahmin cid la doonaysa ma jirto oo ministerki wax weydiinaysa qofkaan wuxuu ku hadlayaa codkiina idinkaas uma inay mas'uulin ka yahay imise jeerba police inta ka wad ku qabtay ma si khalad maarta kula hadlay imise shaqa si lagu waxad gudbay imisa maxaa la yiraahdaa qofku waxad gudbay waxa you can name it banka hadlaya meel hadda Kargil la yiraahdo Brooks ku taala nin Eritrean dadkii gumaysiga u geliyay weligii la mid ma dadka hadda kaaga sheekay caloosha ku xanuunaysa meeshaas waxay noqon lahayd maal maartay laba phone call ama loo diray bay ku xirantahay union code la qaari ka qaadanaya xataa umadooda because they don't care iyagu ma rabaan as long as lacagta helayaan marka la jecla marka xafiiskan waxaas uu qabanaya arrinta wixii marka soo baxan oo sida qof lagu xadgudbay ama gabadhaas hadda aan sheekeynay saddex ilmood hayso hooyada oo kale iyo ama arrin ishu dhacday oo loo baahan yahay in isla markiiba laga maartay laga jawaabo de qofkaan diyaar ku ah oo si diyaarsanaya maxaa la yiraahdaa ma rabno marka grant iyo base inuu noqdo sababtoo ah taa waxa weeye dadka ku support gareynayay interest gaari ka leeyihiin inta badan waxyaalaha xuquuqda lagu raasado dadku ka xataa cadaanka laftigiisa dadka cadaanka waa laga yaabaa dhaqaalaynaysa laakiin markay madow arkaan waxa weeye waxyaalo kale kugu xirayaan marka ma rabno inay sameeyno waxaan rabnaa maarta impactigeedu inuu noqdo wax maxaa la taaban karo oo aad bari arki kartid waxyaalaha aan dhaqaalaha hadda aan rabno inay ku baxdo waxa kamid ah administration costiga office-ka communication technology-ga software-ka insurance-ka compliance-ga financial management-ga iyo bookkeeping intaasba waa qabanaya human resource-ku wuxuu noqonayaa staff coordinator research policy support community outreach iyo volunteer management-ga qofku qabanayo program support advocacy campaign community engagement weeyaan arrinta hadda dhaqaalaha 75,000 waxaan u kala saaray staff support ku waa 35,000 waa part time weeyaan short time na weeyaan oo waxaan rabnaa mar labaad inaan raise gareyno inta ka dhiman administration ka arrinteedu waa 10,000 weeyaan research advocacy waa 15,000 community engagement-ga oo aan rabno inaan isku abaabulno waa 10,000 communication iyo media aragtid inaad dadka outreach ku sameeysid oo aad rabtid inaad ogaatid in issue-gaaga aad dad kala xiriirto waa 5,000 weeyaan koorkooda marka la isku daro waa 25,000 weeyaan maxaa la yiraahdaa arrintan waxay noo sameynaysaa inay empower garayso oo naga dhigto dad human xaqoodiina raadsan kara haddii lagu xadgudbana maarta ka dhidhiyi kara baa rabnaa oo wax ka bedela mideedana ogaada haddii wax intaad sameysay wax lagu sameeyay aad ka dhaadhicid waxyaalaha kale kugu soo socda waxa laga yaabaa in laga dayoolay dadkaan hadaan hadda u tagna labada group oo aad arrinta u isticmaalana waa qowmuluudka iyo nimanka maxaa la yiraahdaa Yuhuudda waliba Yuhuudda ma hansiha Yunuida weeyaan baa labadaas yaqaan oo bartay sida arrinta loo sameeyo
waxay kala sameeyaan maartay legal bay isticmaalaan waxa weeyaan education bay isticmaalaan community outreach bay sameeyaan maxaa la yiraahdaa isheeg maartay waxyaalo badan oo ay isugu yimaadaan waxa laga yaabaa nin lawyer in aragtido qolo dhiban u doodaya wax kala ma aha waxay rabaan inay allies ka dhigtaan waxayna rabaan inay ka hortagaan wixii intiisa soo gaarin maxaa la yiraahdaa arrintaas waxaan rabaa xuquuqda mararka qaar waxay kugu khasbaysaa inaad dad kale xuquuqdooda lagu xadgudbay sida native-ko kale inaad u doodid sababtoo ah waxaa rabtaa inaa hadhow allies ay kula noqdaan iyaga laftigooda ay hadhow ay kula saftaan maxaa la yirahdaa waxaa laga yaabaa in nimankan niman waxaa jira legal aid la yirahdo hadda dawladdu ay xakamaysay waxyaalaha u doodi karaan hadday dawladdu kugu xaq gudubto they're not gonna fund it marka taasoo kale waxay noqonaysaa waxyaalaha political campaign iyo waxyaalaha caadi noqonaysa maxaa la yiraahdaa waxaan rabnaa future-kan meelna uguma socono dad badan baa waxa we already voted with our feet waxaa la baahan yahay in wadankan kullu waan ku noolaanaynaa aynu sida ay tahay aan ugu noolaanano dadkeenana aanu maartay u sharxan ilmaheena intaanu dibadda ula ordi lahayn wixii u baahan yahay halkaanaan maartay ugu beerayna hadday noqon lahayd dugsi hadday noqon lahayd school hadday noqon lahayd dhaqaalo hadday noqon lahayd culture hadday noqon wax walba samay fahmin waxa laga yaabaa halkaan inaan ka dhigno maartay guriga hooyadeen oo kale oo wixii aan xagga uga baahanay halkaan keeno luqadii Soomaaliga ahaa diintii wax walba aan ku samaysan xoogaa waxaan moodaa inaynaan arrinta u soo jeedin wax kaliya aan sameynayna xoogeen si ilmeena dhaqan iyo luqadda ku baran lahayn inaan ship garayno oo thousands dollar nagu koos garayso midda kale center malihi waxyaalaha keenana waxa weeyaan waxyaalaha iska maxaa la yiraahdaa iska huuhaaya baa jira soo fahmin dad naga yar baa waxay leeyihiin meelaha isugu yimaadaan xataa hadaa meesha ayna xataa rent garaysatid wax dhan bay noqonaysaa hadaa inaan yeelano meel maartay dadkeena ka wacdino aan kala hadalno dadkaaga hadaan la hadlin balaa la hadlaysa soo fahmin haddana waa laga baxay TV-giyadii caadiga ahaa iyo mainstream legacy-ga ahaa iyo hadda waxa yimid social media bad arrimahaaga kaga shaqeyn kartaa waxa laga yaabaa inaad ka warqabtid waxa Soomaaliya ka dhacaya inaad ka warhaysa aadan ka warqan wixii magaalada ka dhacaya hadda waxa soo socda petition la rabo inaan vote garino aan ku muujino codkeena inaan ku muujino inaan arrintaas raalli ka ahayn hadda maba arag baa dadkeenana waa iska warqabnaayo wixii anagu aan rabno inaynu qabano waa laga sheekaystaa meelaha fadhi ku dirirka ee aan tagayo cid soo hadal hayso ka warqabta ma jirto marka arrintaas waa arrin loo baahan yahay inaynu maartay ka maxaa la yiraahdaa ka maxaa la yiraahdaa ka digtoonaano oo aynu maartay u istaagno arrintaana ay noqoto anigu hadda geed gaaban iyo geed dheer iyo geed gaaban baan rabaa in arrintan u fuulo waxaan jeclahay qof kasta oo walaalkay oo maqla arrintan fartinta soo gaarto inuu dollarna Allah ka dhigay ku support gareeyo waxaan soo bandhigi doonaa adigu next week sidii qaabkii aan noqon doonto email baa la sameyn doonaa email-kaas loogu darayaa waa tax deductible hadii certain level hadaa gaadhay I don't know 75 or 125 miduu yahay ma garanayo hadaad ku donate garaysid waxa weeye taxiga dawladdu u celisid baad ka dhow ka goosanaysaa maxaa la yiraahdaa mission-keena inaad igala qayb qaadatid waana transparent weeyaan ma aha wax qof shakhsi leeyahay anigu waxaan jeclahay qof igala wareega responsibility-gan hadda aniga dareenkeedu haysto baan rabaa in la igala wareego arrintaas unbaa igu weyn mooyaane wax kaloo dana oo aan kale ahaa ma jirto waan arkayaa waxa faa'iidada ay leedahay waxaan jeclahay inaan uga tagno dadka dhalinyareedena maxaa la yiraahdaa dhaxal iyo future inaan uga tagno ay iyagii la wareegaan dadka aan jeclahay hadda laftigeeda arrintan aan raba inay ku abuuro waa dadka hadda faamilada cusub oo yaryarka ah iyo wixii dhalinyarada weeyaan si ay dadkooda wax ugu qabtaan waana wax iyagu wadankan bayna khusaysaay meel kale khusaysa ma jirto waxaana maba ahaba dhaqaale iyo laga hadlimayo waxa laga hadlayaa shaqo iyo noloshaada iyo waa daily life qof walbana dareenkiisa hadaad aqoon leedahay hadaad engineer tahay hadaad tahay dhakhtar iyo hadaad tahay inagu dhan ba u baahan sababtoo waa wax qof walba taabanaya adigoo milyan sameynaya lagu xadgudbaya waxyaalaha ka dhaca Mareykanka waad aragtay oo qof iyo Canada labadeed soo ay fahmin lawyer baa asagoo ku jira xafiiskiisii oo wax qoranaya inta loo yimaado xiray oo maartay jeelka tagay sababtoo ah gabar madow bay ahay soo ay fahmin hadda uu shaqadeedii bay ku jirtaa waxay dhex fadhidaa koodkii ay markaas qof u difaacaysay marka idaas maaran kalarka saaleedahay bahashan kalarka ah dib bay leedahay hadalka waxaan kusoo gabagabaynayaa
maalin waqti hore waqti ah anu waqti hore aan min magaaladan oo dadku ay madowga ay ku yaryihiin marka nin loo yaraa judge haba maalin meel noogu qudbeynay anagu madow ah adigu wiilaa 20 baan ahay wuxuu yiri waxaan ahay anigu 3 generation baan wadankan ku dhashay gobolkan weyn magaaladan wuxuu yiri waxaan joogay marna loo diidi jiray inaan swimming pool galno history waxa laga yaabaa inaan ilmahana loo dhigo gaaladan waa qariyaan waxooda moogto history-gooda iyo maarta meel kala soocoodi marka Nova Scotia un bay qaran waayeen oo ay aad u sameeyaan laakiin magaaladan mar baa jirtay jarmal buu ku yaala waxaan rabaa inaan mar soo bandhigo iyadoo la leeyahay maarta ma gali karaan madow maarta swimming pool-kaas wuxuu yiri aniga 3 generation baan ahay ilmahayga baa waxa la weydiiyaa xagee ka timaadeen fiiri waa dadaan ogolayn inaad wadankan wax ku leedahay inaguna waa si support garaynaayo markii lagu weydiiyo xagee ka timid cunugii isagoo yar oo aan 3 generation ku dhashay ilmihii ay isagoo ku halkan ku dhashay ilmo kala dhalay ilmo ka dhalay waxa leeyahay xagee ka timid markaasuu leeyahay Soomaaliya ka yimid nin waxa weydiinayay wiil ilmahayga xagee ka timid hadda ka soo degay wiil Irish ka yimid ama Ingiriiska ka yimid wiil ama Polish ka yimid just because waa cad yahay cid weydiinaysa male inaguna ma weydiinaba inta badan marka arintaas waxay nagu leedahay maartay saameyn weyn bay dadkeena ku leedahay mid kale aan rabaa inaan dadkeena ogeysiyo waxa weeyaan kala barta waxa u dhaxeeya Canadian Somali iyo Somali Canadian labada eray kala barta Somali fahmin waa very important way fanta maleynaya waxa weeyaan anigoo kale Somali Canadian baan ahay sababtoo aan weyn baan imid luqadaydu waa ESL waxa weeyaan accent baan leeyahay am proud of that laakiin qofka halkan ku dhashay oo aan weli Somali aragama ku koray halkan ku koray isagoo yar la keenay waa Canadian weeyaan Soomaaligu waa culture-kiisa weeyaan Somali fahmin marka arintaas waa arin weyn weey maalin baa arin waqti baa laga yaabaa inaan soo duuba arinta keenta arintaas inaan u dhagan nuglaan way fanta malay arin waxay dhacday markii la weydiiyaan dareemay aniga in Axmed la yiraahdo arintan saameynta ay nagu yeelanaysa labada eray kala duwanaanshahooda marka balcaawa intaas ay noo joogtaa arintaas walaalayaal waa arin muhiim ah aniga muhiimiya dadku muhiim ah waxa inagu muhiim ah inaynu gaarno nimanka cadaanka tusno inaan anagu fangarayn karno waxa naga important noo ah taas waxa different u dhaxeeyo weeyaan soo ma fahmin arintuna ma laga hadlaayo meeshan waxaan ku deganahay la yiri 35 iyo 40 baan ku deganahay hadii xataa $1 u baxsho qofka waa 40 weeyaan iska daa haduu $5 bixshana kaba badan marka arintaas waa arin aad u muhiimsan waxa qof walba wuxuu awoodi karo iyo wuxuu ka maarad sameyn karo weeyaan waana very important weeyaan arintaas inaan sameeyno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi inta mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar shanaad iyo mar labaatanaad aan furmay aan kulmi doono wixii ra'yi ah iyo wixii comment waxaad igu dhaafaysaa mahraday information ka shada aan soo saara ku yaala wixii xataa talooyin la siin karo way fanta maleynaya waxa laga yaabaa anigu maartay waxay iguma soo degay wax bil aadan baan ahay waxaan qaldami karaa waxa la yarsi kale ila moqon kartaa in la toosiyo in la toosiyo waxaan u baahanahay kulay waxaan abuuri doonaa gudi arintaas noo sameeyo because mar damba laga yaabaa hadaynu sii noolaano oo aanu sii joogno inaynu abuurano defense fund education defense fund oo dhaqaale ah waan ugu talagalno inaynu maartay arrimaheena ku difaacno wixii xaq daraa oo aan arkaynana aanu isaga meel jeelno lawyer-nimadu waa wax loo baahan yahay qof walba u baahan madaxweyne prime ministerka ilaa dalka qof walba because sharci bay degsadaan sharcigaas bil aadanku waa aragtay oo meelna maartay kuma waxa weeyaan waa sidii maartay waa gaaraya meel maartay u kala sgareynaya marka in lagu soo duwa soo ma fahmin marka hadda dad badan baa waxay u riyaaqayaan ninkan hadda qabsaday uu ka xun yahay ninka conservative-ka laakiin dadku ma waa smooth talker banker weeyaan soo ma fahmin waxa la wixii dhaqaalaha iyo wixii sharci ah iyo wixii protection ah inta uu ka takhalusay si maartay aan la garanayn way fanta maleynaya waa daadsa way dadka badan ay u koros gareeyaan followerka ugu biiraan sababtoo waxay ka dhaxarkaan inuu cadaanka u adeegayo soo ma fahmin dadka ka immigrant oo la joogana dantooda un bay fiirsadaan iyagu they don't care hadii hortooda lagu gowracayo soo ma fahmin shar wuxuu hortaagnaa maxaa calanka Israa'iil buu hortaagnaa iyadoo la og yahay maarta waxa ka socda anagu baqamayna ilaahay mooyaan cid kale ka baqayna ma jirto dantaydan waa qabsanayna wixii policy aniga aan wax walba waa halkan weeyaan
arrinta as long ay Hamilton iyo Canada ay runtu ku egtahay is okay wixii aniga aan martay marka prime ministerka dhaqaalahayga iyo vote-kayga iyo wadananimadeedu wadanka ku jooga wixii aan raali ka ahayn waan la ogaado weeyaan haddaba intii aan mar labaad agayn iyo mar saddexaad mar afraad mar shanaad aan dib u kulmi doono waa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh